wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Cumar Cali Cabdilaahi Bade ayaa bulshada u diray fariimo ku saabsan xanuun dhaliyaha coronavirus. wasiir Cumar oo gudoominaya shirka toddobaadlaha ah ee arrimaha degdegga ah lagu gorfeeyay ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ayaa ugu horeyn ka hadlay sida ay tahay xaaladda xanuun dhaliyaha coronavirus ee Somaliland. sidoo kale wasiirku waxa uu fariimo kala duwan u diray bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaan ku jirnaa waa shirkii toddobaadlaha ahaa ee wasaaradda caafimaadku madaxdeeda iyo howlwadeennada kaleba lagaga tashanayay isbedelada ku yimaada xaaladda caafimaadka dalka oo ugu horeyso xaaladda COVID-19. halkan waxaan rabaa inaan bulshada uga sheegno xaqiiqo waxa oo maragmadoona in xanuunku uu aada u kacayo oo xaaladaha dadka uu xanuunkaasi helayaan oo kordhayaan, sidoo kalena dhimashadu ay intii hore ay ka badan tahay. shalow keliya waxaa xanuunka u dhintay 3 qof. dhimashadu sidii hore maaha waa joogto, xanuunkuna aada buu u fidaya. markaa bulshada waxaanu sheegaynaa in wax kastoo la sameeyo waxa ugu muhiimsan in wacyiga iyo tilmaamaha wasaaradda caafimaadka la raaco oo qofku caafimaadkiisa ilaashado, afka uu xidho, gacmahana uu mar walba ku dadaalo nadaafadooda, intii suuragalana la kala fogaado. tilmaamaha kale ee la xidhiidha qofka xanuunka usoo dhaca sida loola dhaqmayo iyo xogta halka laga raadsanayo, taana mar walba wasaaradda caafimaadka bulshada ay ku xidhnaato. dalkoo dhan waa diyaar meelaha dadka lagu baarayo, laakiin bulshada waxaan u sheegaynaa dee qof walba oo qof xanuunka ku dhacay arkay xanuunka ma qaaday, laakiin wuxuu u baahan yahay in qofkaasi hadduu iskaga shakiyo horta inuu isagu iskaarantinimo gaar uu u joogo. haddii markaa calaamado ku soo baxaan oo uu dareemo in xumadu yeelanayo ama isbedello kale, markaasuu qofku u baahan yahay inuu baaritaan loo sameeyo. sidaana waxaan u sameynaynaa dee waad ogtihiin oo awooddeena aynu ku baari karno qof walba waa awood aada u kooban. waxaynu u baahanay inuu si garaad ku jiro, maskax ku jirto aynu u isticmaalno intaynu haysanno. taa macnaheedu ma aha cid baa loo la-yahay in la baaro, laakiin waa la baari karaa. lakin waxaan u baahanay inaynu taana ka wada qayb qaadano. waxaa kaloo bulshada u sheegaynaa in dadku ay xanuunka sidii horeba waxaa dadka u dhimanaya u badan dadka waaweyn. cidda u geynaysaana waa dhalinyarada iyo cidda kale ee dadka ku dhex jirta. taana waxaan codsanaynaa in si loo ilaaliyo dadka hantida inoo ah ee waalidka iyo garaadka iyo maskaxda inoo ah si loo dhowro in dhalinyaraduna is ilaaliso oo ayna u geynin waalidkooda iyo ehelkooda guryaha jooga. waa sax qofku inuu dadka soo dhex galo, laakiin intii laga maarmaanka isagoo is ilaalinaya inuu dadka soo dhex galaan ku talinaynaa. kale aan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada in shirarka la isugu imanayo ee la xiriira doorashooyinka iyo xulidda murashaxiinta in intii suuragala laga baaqsado. haddii laga maarmi waayana la raaco tilmaamaha caafimaadka. sidoo kale aasaska la isugu imanayo iyo xafladaha lagu qabanayo hodheelada iyo dhammaan meel walbo bulshadu isugu imanayso waxaanu faraynaa in la ilaaliyo muxuu ahaa shuruucdii iyo tilmaamihii caafimaadka. haddii laga maarsan waayo in la tago, haddii kalena waxa weeyaan inta xanuunkani xaaladdan ay taagan tahay dadku ay ka baaqsadaan inay tagaan shirarka noocaasa oo iska ilaaliyaan si iyaguna isku badbaadiyaan, ehelkoodana ay uga baajiyaan dhibaato iyo xanuun iyo dhimasho. xanuun dhaliyaha coronavirus oo xaaladiisu aada kor ugu kacday guud ahaan caalamka iyo mandaqada bariga Afrika ayaa Somaliland 10kii cisho ee u dambeeyay waxaa laga helay dad ka badan 350 qof iyadoo qaar ka mid ahina ay u geeriyoodeen.